cusbitaalkii guud ee magaalada Ceerigaabo caasimadda gobolka Sanaag waxa la xaday mishiinkii shaybaarka dhiigaga ee CBC Complete Blood Count oo qiimo ahaan 20,000 ku dhow oo ahaa shaybaarka kaliya ee ay leedahay cusbitaalka magaalada Ceerigaabo ee loogu adeego ummadda sidaan xog ku helayna waxa loo iibgeeyay garoowe oo waxa weeyaan dadkii qaatay u iibgeeyeen waxa ku eedeysan dad baa lagu tuhunsan yahay inkastoo oo aan wali si cad wasaaradda u sheegin oo ay qarinayso oo waxa weeyaan aan la sheegi karin waxa aad iyo aad nasiib darro u ah oo aan ummadan iyo qarankan midna qabanin in mishiinkii shaybaarka ee ummadda ka dhaxeeyay ee cusbitaalku lahaa ee ummadda loogu adeegayay inta la xaday lagu tasarrufay waliba la iibgeeyay wasaaraddii caafimaadkuna ay ka indhaqarsanayso oo aanay sheegi karin magaaladii Ceerigaabana ay ka jirto baahi weyn oo loo qabo mishiinka la xaday qof kasta oo reer Ceerigaaba ama degmooyinka kale afarta ayaguna la wadaaga cusbitaalkaas wuxuu maanta ku qasban yahay inuu iska soo baaro haddii uu shaybaar dhiig u baahdo suuqa oo qiimo ahaan qaaliya oo aanay qaadi karin mishiinkii ay lahaayeen ee waxa weeyaan cusbitaalka dawladda yaalayna lagu tasarrufay oo la musuqay oo inta la xaday waliba la iibgeeyay guud ahaan xogtaanu ka hayno cusbitaalkaasi adeegyadiisii hoos bay u dhaceen wax shaqo ah oo ummadda loogu qabto badani kama socoto waana gaabiska cusbitaalada guud ee gobolada ka jira ee ay la wadaagaan waxse iyaga u gaara in uu musuq baahsani ka jiro oo markan ka horeysayna oxygentii loo geeyay laga helay suuqa iyadoo lagu laxaamadayo gawaadhiyo lagu shaqaysanayo waa mas'uuliyad darro waa nidaam xumo waana niyad jab weeyaan waxaanay muujinaysaa in aanay meeshan jirin accountability iyo supervision dabagelaya shaqada ummadani halkay u socoto iyo halkay ku socoto iyo halka loogu qabanayo wasaaradda waxaan ugu baaqaynaa oo si degdeg ugu sheegaynaa oo aanu leenahay mishiinkaas shaybaarka dhiigaga ee cusbitaalka Ceerigaabo laga xaday ee lagu tasarrufay la iibiyay in meel la saaro meel lagu cadeeyo cid kasta oo xidhanna cadaaladda la horgeeyo cid kasta ku cadaataana ay mudato xaq wixii waajibku uu noqdo sidaan xog ku hayno ujeedada ugu weyn ee cusbitaalka Ceerigaabo loo curyaamanayo dawladdu waa in la horumariyo cusbitaalo gaar ah oo ku cusub magaalada taa laftigeeduna dee waxay muujinaysaa in aan dawladnimadii daryeeli lahayd ummadda damaanad qaadi lahayd caafimaadkeedu aanay ka shaqaynaynin noloshii bulshada deegaanka oo waliba deegaankaas aanay miisaaniyadda iyo budgetka qarankani aan wax badan ka gaadhin oo waliba gobolkaasina uu ka yahay Somaliland halbowle markaad eegto dhinac walba hadduu baaxad ahaan aad eegto iyo haddii aad eegto gobol ahaanba deegaanka ummadda ku nool waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo ay ku helaan cashuurtooda oo ay ku helaan muwaadinimadooda waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada ee gobolka Sanaag laga soo doortay degmada Ceerigaabo inay kula xisaabtamaan wasaaradda caafimaadka dib u dhaca caafimaad ee ka jira ee aan cusbitaalka laga helaynin hal adeeg oo lacag la'aana iyo adeeg tayo leh oo ay ka taagantay meeshaasi dhibaato weyn qayla dhaanteediina ay maalmahanba ummadda dhagahooga soo gaarayso gabagabadii waxaan u soo jeedinayaa reer Ceerigaabo inay difaacdaan xaqooga xuquuqdooda iyo muwaadinimadooda oo ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo hadima ku ah nidaamka iyo waxa weeyaan habsami socodka shaqada halka ka jirta wasaaradda caafimaadkana waxaan u soo jeedinaynaa inay meel ku cadayso waliba agaasimaha guud toddobaad ka hor wuxuu tagay degmada Ceerigaabo ilaa haddana lagama hadal arrinka mana jirto wax tallaabo oo la qaaday waxaanu soo jeedinaynaa oo aanu golaha wakiilada cusubna u soo jeedinaynaa in isla xisaabtan ka dhasho dhibaatooyinkaas soo noqnoqonaya noocaasa ummadana loo difaaco xaqooga iyo xuquuqdooda